gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka Soomaaliya waxaanu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan jeclahay maanta inaan ka iraahdo dhowr kalmadood doorashada magaalada ee dawladda Muqdisho ee xalay ka dhacday. marka waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud أنا أقول لك داون doorashada Muqdisho xalay waan soo jeeday ilaa intuu dambeysay waxay soo jeedeen waa garanaysaa waxay soo jeediyay waxa weeye waxaan shantaas sanadood ka seexan kara waayay ninka shindada sitay ee cilqaba ahaa in degmo qurayd ku darsan ee shantaas sanadood ku soo celiyay dawladda Maxamed Siyaad Barre in wada jirka kaga xoreeyay ummadda Soomaaliyeed ويدقوا ساعة تاجن إنديهم ويدقوا دول إسرائيل تيو عين كيه إلا قولوا ذياش إلا هراجع وصور إسرائيل عروتي كوكرتي دي بدأ كعان خدالي يكوي هراجعها يتولون كودا بريكو بحصل dhinaca kale gudoomiyuhu waxa uu fariin u diray madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha la doortay horaa lagu doortay beriga lagu doortay waad ogeen gacantan ku geystay aniga iyo rag kaleba sida yeesheen waad arkaysay markii u dambeysay waxaan ka codsanayaa Somaliland dalkeeda gacanta ku haysata nidaam bay samaysatay meelaha ugu wanaagsan bay tahay horaan anagu dala ayaan idinku nimi oo laba dal sameynay waynu isxamil weynay taa Ukraine ka socotaan ugu dhacday lagu abaal guday wixii waxaan ugu sameeyay waanaga wada jirka USC iyo SNM ay iskaashadeen aynu dibadda iskaga tuurnay maanta waxa weeye waxaan ka codsanayaa horta heshiideen wada galay dawladdii Sheekh Shariif ka horeysay iyo taayid aan labadeenu marxad ka hayn go'aamadii horta waxaan doonayaa fulis oo kani damcaynu baabiyo على قضية أنا احترمتها كدنيا ترى وحنا كدنيا إن القرارات هي دور كهرة سميزات كويدي الدور شذا إن السياسة حدا ما كدنيا أنا ودي أربعون هاي وح الله وحيد أنا ربطان أن تكون عاون كرنا ودل كيلو كهجين كرتان والدولة ده قبائل كه الدول كلام عرق قبائل ستيت سميزتها federal states waxa sameeyay states ku tagan laakiin reerist nayiri states baan muddo magaalo haysta oo sinnaman adduunka lama hayo qorshahaas lagu soo sameeyay meesha la yiraahdo Garowe qorshe idin wada karaya maaha reform ku sameeyay dastuurkiina waxa ku sameeynaysaan kala cadeeya awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra'iisul wasaaraha system kino ma presidential system ba saakayaga system kino ma parliamentary system ba sidii 60kii aad cadde waxa system kino ma kiisku jirka saaka Falastiin barasi in Faransiiska horta sharcigiina hagaajista oo reform ku sameeya dowlad goboleedada waxa ay yiraahdaan iska tahay stateskaas mid qeyriyad istaag karta ma jirteen istaag karta صوص بحب بحسام يستاهل والتعليم بايالتين ما أنتوا نجا التعليم بدنتي دول نبدأ كفائزين لكن واحد كم مغان ليدرشيب كي هذول نبى شعر تشو ويعني واحد في هذا المشيرتين يعني لا دولة قارن هذا أو مغان دولة قبلات أو لك القريبيو قال كعيو بالنسبة للسومالي كدون سمحت مركا إذا كي واشن دولة كلام نقضي ما واحد كلها هاي أنا نوصل دعية فرماتشو وحي يصلح أبورنا وكانت تجيني إسكحالة هذه فيع كل الدنيا قالنا شرعي هركان تتكسب توسك ودلي شرعي هركان ها هبران ليدرشيب كل ما هبرده من مدحوين ما هبرده سيف يديك سيف تعرفتي روق عسي وباور يديك يعني ماذا لقى ما خبرته حاليا هنا
laba dowladood walaala taa Djibouti oo kale taa kilka Soomaaliya Kenya Ethiopia taa NFE inuu koontada yeelatay shantiin waxa ka soo iska helin igid in iska helina shantii Soomaaliya igid baan iska helina Horn of Africa States baan sameeyna halka soo iska helina marka Soomaali weyn ma ahayn Soomaaliya shanta isku yimaadeen ina Umar Geel haduu leeyahay Soomaaliya ma dhisaya ha yimaado anaga doonayno ku dhawaaqnay isna ha yimaado laakiin anaga nagu bushkareen inta magaalada la fadhiista meel buuma ka dhigay anaga nagu dhigo mid dad mardama nagu xasuuqo ma yeelino waxa aad baan hambalyeynaa aad baan hambalyeynaa shacbiga Muqdisho aad baan inta ku hambalyeynaa maanta farxad weyn baatiin iska qaad duliga waa iska qaad Maxamed Mirq Warsame